maanta waxaa sharaf noo ah inaan soo gabagabeyno tartankii iskuulaadka degmada Balcad ee taageerinaysay hay'adda Bargof Germany. tartankan wuxuu ka dhaxeeyay 8 iskuul. runtii 8 iskuul waxaa maanta finaal isku imaaday kooxaha kala ah Imaam Nawaawi iyo Ifiye waxay guusha ku raacday Imaam Nawaawi. runtii iskuulka Ifiye waa dadaashana leeyahay hambalyo. iskuulka guuleystay Imaam Nawaawi waxa leeyahay in waa dadaashana hambalyo. waxaa leeyahay iskubarta isdhexgal leh isboorti horumar leh. runtii maanta waxaa soo bandhigteen ciyaar qurux badan labada tiimbo iskuulka Imaam Nawaawi iyo Ifiye. maanta guushaas ay ku raacday iskuulka Imaam Nawaawi. Ifiyena waa dadaasheen waxaa leeyahay halkiina ka sii socda. waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka degmada oo runtii isboortiga aad nagu taageera garab noo siiya. ugu horreyn ninkii saaxiibkeen gudoomiyaheena Xasan Cali Nuur waxaa leenahay gudoomiye waa maasan tahay dhalinyarada waa ujeedaa farxadooda isboorti haddaan la helisin nabad lama haysto. marka waxaan rajaynayaa isboortiga waa furaha nabadda. waa maasantiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in la soo gabagabeeyo kubadda isdhexgalka bulshada kaasoo loo qabanayay dugsiyada waxbarashada degmada Balcad. anigoo ku matalaya afka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan guddoonka iyo kormeerka waxbarashada degmada waxaan u hambaleynayaa labada koox ee maanta finalka soo gaaray iyo kooxda guuleysatay intaba. waxaan u rajaynaynaa ayagana kooxihii kale laga guuleystay ayagana inay sidooda kale maalintooda ay qaadi doonaan. waxaana ku faraxsannahay maanta inaan goobjoog u noqono in kubadda waxbarashada isdhexgalka waxbarashada dugsiyada inay noqoto doorka ugu muhiimsanaa. waana soo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay waana u hambaleynaynaa. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa xiriirka kubadda cagta degmada iyo guud ahaan maamulka degmada kuwaasoo xil iyo mas'uuliyad iska saaray in kubadda cagta si nabdoon ay noogu dhammaato. mahadoo dhanna alla ay u sugnaatay. sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa maamulada dugsiyada iyo dhammaan dugsiyada kuwaasoo ayagana ciyaar wanaag iyo si mas'uuliyad leh u soo qaatay doorkooda. waqtigoo dhacay awgiis kelmaddeeda ma dheereenaayo. mar saddexaad mar labaad iyo mar afaraadba waxaan u hambaleynaynaa labada kooxood ee maanta soo bandhiga ciyaar qurux badan iyo kooxda guuleysatay. waana mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan mas'uuliyiinta degmada Balcad guud ahaan iyo bahda isboortiga degmada Balcad saxaafadda iyo ciyaartooyda dhammaan waan salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii waxaa farxad weyn ii ah maanta in aan goobjoog ka ahaado tartankii iskuullada oo runtii loogu magac daray tartanka nabadda iyo isdhexgalka oo loo qabtay 8 iskuul ee degmada Balcad inaan finalkiisii goobjoog ka ahaano. anoo ku hadlayo maamulka gobolka Banaadir magaciisa iyo xiriirka Soomaaliya kubadda cagta. runtii waa arrin aad iyo aad u qurux badan in horumarka isboortiga laga shaqeeyo guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta. runtii degmada Balcad waxay ka mid tahay degmooyinkii martida ku ahaa tartankii dhawaan amba ka socday magaalada Muqdisho hadda finalkiisa la taagan yahay. waxayna sanadkii afraad ama shanaad ee ka soo qayb gashay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ee marti ku ahayd. sidaas darteed anagana waxaan u taagannahay inaan dhiirigelino dhalinyaradeeda isboortiga mar walbana tartamadooda iyo horumarkooda aan kala shaqeyno. runtii waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka caddeeyo anoo ku hadlayo magaca xiriirka Soomaaliya kubadda cagta gaar ahaan guddiga garsoorka in mar dhow bilaabo doonto horumarinta garsoorka ee dhanka gobolada. degmada Balcad waxaan ku bogaadinayaa runtii amba aan leeyahay in ay hadda gudoomiyaheeda mar dhow ka wada hadleen in ay koorsooyinka ugu soo horeeyo degmada Balcad lagu qaban doono runtii oo loo qaban doono 30 garsoore oo degmadan ah. guddiga garsoorka runtii oo runtii xiriirka Soomaaliya kubadda cagta guud ahaan waxay diiradda saari doonaan haddii Ilaahay yiraahdo horumarinta xagga garsoorka oo dalka oo dhan guud ahaan. waxaan rajaynayaa insha Allah in ay saan runtii u sii horumariyaan isboortiga kubadda iyo guud ahaanba kubadda cagta. waxaan leeyahay waa u mahadcelinayaa runtii intay ka soo qayb qaadatay tartankan iyo intay soo agaasintay oo ugu horeeyaan maamulka degmada gaar ahaan maamulka isboortiga ee degmada Balcad. waxaan leeyahay hambalyo kooxda ku guuleystay dugsiga ku guuleystay dugsiga laga guuleystay runtii ayagana hambalyo aan leeyahay ka soo qaybgalkooda iyo dugsiyada ka soo qayb gala dhammaantood iyo maamuladoodaba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gabagabowey maanta oo jimco ah waa ilaahay fadligiisa waaye. waxaan ugu mahadcelinayaa hay'adaha amniga oo suurtageliyey inay ka qabsoonto tartankan oo maalmahan socday si nabad qurux badan noogu soo dhammaaday oo iskugu soo hareen 2 iskuul Ifiye iyo Imaam Nawaawi
oo labada kooxood waxaad moodaa in ay soo bandhigeen ciyaar wanaag oo ugu dambeyn la isku yimid khibrooyin oo ay guusha ku raacday iskuulka Imaamu Nawaawi waana ku mahadsan yihiin dhamaantooda tartanka qurux badan ee noo soo bandhigeen maalmahan socday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hay-adda Balgo Foundation IBM-teeda degmada Balcad oo gudoomiye aan aniga ugaas maxamuud u ahay waxaan ugu soo gabagabowday maanta si farxad leh koobkiina waxa qaaday 8 iskuul ciyaaraysay koobkiina maanta waxa qaaday Imaamu Nawaawi iyo waxa ciyaaray Ifiye waxay ku dhamaatay ciyaarta rigooro waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha isboortiga gobolka gudoomiyaha kusimaha degmada ku-xigeenka degmada iyo saxaafadda oo idin lamaantiin waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdu salaam waxaan idin leeyahay sidaan iyo si ka wanaagsan iyo ciidanka nabadgelyada oo aydan si gaar ah ugu hambalyeeyno ururka haweenka dhalinyarada asxaabta ka soo qayb gashay waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada gudoomiyaha gobolka Banaadir loogu yimid mudan wiishan waxaan leenahay dhiirigelin aad iyo balaaran ayaana siisay wakaalada mahad celina IBM Hirshabeelle waxay diyaar u tahay ciyaarahan iyo mid kale oo ka wanaagsan iyo degmada inay u qabato saasaad ku soo dhaweynaa insha Allah waqtiga nagu yeelo awgiis waxaan ka soo istaagay iskuulka Imaamu Nawaawi iyo Ifiye waxay ku dhamaatay rigoorooyin waxa rigoor ku guuleystay oo ku badiyay Imaamu Nawaawi koobkana ayaga rabnaa inaan guddoonsiino maanta aan u taagannahay marka xilligo gabagaba ee waqtiga gaaban saxaafadda kullu dhamaan kama iloobin waa maasantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.